ما شاء الله waxaan idinkugu mahad celiyo ma baaqaan laakiin waxaan leeyahay horta gabadhayda waxaan u bixinayaa Soma maanta laga bilaabo waxa la yiraahdaa Soma. munaasabad lagu weyneynayay maalinta caalamiga ah ee umulisooyinka adduunka ee 5 May ayaa maanta Muqdisho lagu qabtay. 5 May sanad kasta waxaa dunida laga xusaa maalinta caalamiga ah ee umulisooyinka adduunka. Si la mid ah Soomaaliya ayaa maanta laga xusay iyadoona sanadkan halku dhig looga dhigay umulisadu waa xal muhiim u ah isbeddelka cimilada. munaasabadan oo si heer sare ay u soo agaasimeen ururka umulisooyinka Soomaaliyeed ayaa waxaa lagu soo bandhigay doorka umulisooyinka Soomaaliyeed ay ka geysteen daryeelka hooyada iyo dhallaanka ee saameeyeen abaaraha iyo fatahaadaha. munaasabada waxaa ka soo qayb galay bahda caafimaadka, mas'uuliyiin ka socotay wasaaradaha caafimaadka iyo haweenka ee dowladda federaalka Soomaaliya, xildhibaano ururada bulshada rayidka ah iyo mas'uuliyiin ka socotay hay'adda UNFPA iyo marti sharaf kale. ugu horreyn Faadumo Maxamed Cabdirabbi oo ka mid ah umulisooyinka Soomaaliyeed ayaa sharaxaad ka bixisay aasaaska ururka umulisooyinka Soomaaliyeed. hooyada kama harno because waa kula maanana hooyada nagama maaranto annagana hooyada kama maarano marka isbedelada cimiladana waa howl kale oo noo soo kordhay oo ah in daad hadoo dhaco barakac hadoo dhaco hooyada in aanan ka harin laana hooyada annaga nagama maaranto annagana kama maarano because annaga magacina loo asteeyay umulisa waxay tahaybo inaan hooyo wax u qabanno meel kasto aan joogno iyo magac kasto umulisa ay leedahay waxaa laga rabaa in ay hooyo aysan ka harin ay garabkeeda ahaato. muqaabilsanaha arrimaha umulisooyinka Soomaaliya ee hay'adda UNFPA Xaawa Cabdullaahi Cilmi ayaa sheegtay in umulisadu ay tahay qofka ugu dhow ee dadkiisa caawin kara. dhamaanteen inaan ka qayb qaadano oo istaagno sidii aan ugu qareemi lahayn in umulisooyinka la kordhiyo, la tayeeyo, laga caawiyo sidii lagu horumarin lahaa. sababta ay tahay markii wadankeena loo fiiriyo waa kaadiriin muhiim ah. waxaa jira xirfadlayaal badan oo caafimaad kaligood wax ma qaban karaan, laakiin bulshada qayb muhiim ah uga jiraan. hadda dib u fiirisaan historiga markay bilaabanayaan wadanka burburay waxyaabo ugu horeeyay oo la furay mid wifriga kama mid ahayn. xildhibaan Marin Cilmi oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dalka iyo wasiirkii hore ee wasaaradda haweenka Dr. Maryam Qaasim ayaa dhankooda si wadajir ah ugu hambaliyay umulisooyinka Soomaaliyeed. hadduu la soo gaaro intii sharciyeedkan maanta waxaan maleeyaa wasaaradda caafimaadka dad baa ka jooga waxaan ka rajaynaynaa in hindiya sharciyeed ka hadlaaya sidii loo horumarin lahaa maaragtay ururkan maxayta Sooma iyo gabdhaha maxayta umulisooyinka haddayna soo gaaraan garabkaadan taagannahay annagu waxaanu kaliyo leenahay inaanu annaga aanu ansixino sharci dejiyaanu nahay matalana waanu nahay maalinteena soo gaarto heel iyo hoobaan idinku garab taagannahay. umulisada waxay gasha iyo waxay gudda caalamka waa laga ogyahay, caalamka oo dhan waa laga ogyahay, tixgelintaasina way ku haysataa caalamka oo dhan. wasiir dowlaha wasaaradda haweenka ahna kusimaha wasiirka wasaaradda haweenka Aamina Xasan Cali iyo wasiir dowlaha wasaaradda caafimaadka Dr. Maryam Maxamed Xasan ayaa dhankooda munaasabada ka hadlay. umulisada waa badbaadiso, umulisada waa hooyo, hooyada iyo dhallaanka kala badbaadinta ilaaha wax badbaadiyee. umulisooyinka shaqada ay hayaan haddii lagu maamuusi lahaa waxay mudan yihiin in bilada loo xiro. maanta waa maalin qiimo badan. umulis haddii waa hooyo waxay dabooshaa wax kasto. umulisadana waa hooyo kale in adduunka loo asteeyo maanta waa wax aad iyo aad aan ku wada faraxno. waxaan ugu hambaleynayaa dhammaan muxuu ahaa umulisooyinka adduunka, kuwa Afrika, kuwa Aasiya, kuwa Carabta iyo gaar ahaan kuweena Soomaaliya. Aadan Ciise, warbaahinta qaranka Muqdisho.